Waa sidee xaaladda bulshada Gaza iyo daryeelkooda dhanka xarumaha caafimaadka? Warbixintan ayaynu ku dul istaagaynaa. Gebi ahaanba daryeelka caafimaadka ee waqooyiga Gaza ayaa dhab ahaantii maqan, taasoo bulshadu ay baahi weyn u qabaan maadaama dhaawaca iyo dhimashadu ay yihiin kuwo si joogto ah isku soo taraya. Wararka ka imaanaya Deir al-Balah bartamaha marinka Gaza ma aanan arag wax gargaar ah oo soo gaaraya isbitaalka Al-Gaza oo aan hadda joogno. Inta badan gargaarka waxaa la geeyaa cusbitaallo ay dhowaan sameeyeen dalal kala duwan oo ay ku jiraan Masar iyo Urdun, oo ay wehelinayaan cusbitaalka goobta ee Mareykanka ee ku yaal xeebta marinka Gaza. Waxaan ka hadalnay daryeelka caafimaadka ee waqooyiga Gaza, taasoo gebi ahaanba maqan sababtoo ah la'aanta alaab qaybiyayaal lagama maarmaan ah iyo burburinta kaabayaasha muhiimka ah ee caafimaadka iyo tashiilaadka waqooyiga marinka Gaza. Waxaan la hadalnay dhakhtar, taasoo uu noo sheegay in aysan jirin gebi ahaanba baabuurtii madaniga iyo ambalaasyadii, taasoo bulshadu ay dhibaatadu ku sii korodhay. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo geeyo wufuud caafimaad, ambalaasyo iyo baabuur difaaca madaniga ah si loo badbaadiyo noloshooda bulshada waqooyiga marinka Gaza. Tani waa xaqiiqada iyo xaaladda mugdiga ah ee ka jirta waqooyiga marinka Gaza oo ay bulsho badani ku dhibaataysan yihiin, halka gumaystaha Israa'iil ay weli la sii daba joogaan duqeynta iyo waxyeelada bulshada reer Gaza, iyagoo mar walbana ku hor istaagaya gargaarka iyo samafalka uga imaanaya hay'adaha caalamka.